dadka inay miidiyaha ka arkeen anigu dadkaasaan ka mid ahaa maanta ay ugu horreysay si leef aan ku imaado xaaladeedu saad u aragteen horey wax fiican hadda iskama bedelin hadda waxaa la jooga dad aad u tiro badan oo qaraabada ah oo ehel gabdho iyo wiilal iyo odayaal iyo culimo iyo aqoon-yahano dhammaantood marka waxaan rabnaa ehlow waxaan rabnaa halkan waxaa joogtaa gabar la yidhaahda Arda Ciise Cali Guray waa gabdhaha reer Muqdisho ayaa nala joogtay waa dadka soo booqday waxaa kaloo ka mid ah Faarax Yuusuf Ersibaale waxaa kaloo ka mid ah gabankaas walaalkiisa dhalay baali magaca maxamed Ali Baashi Qorwaa baa la yiraahdaa ninkaas waa Aadan Caynab halka Cabdullaahi Yara jooga halkaas waa qoftii la oran jiray Xaliimo Qalib Subagle inantaasna waa reer Ciise Cali Guray kuwa gabdhahan kalena inay jacayl dhacdo guud shakaranaya adigana baashi dhungala adigana waa ana adeerteedu ina Cabdul Salax weeye gabantan yartaana ayada dhashayba waa curadeedii waan filayaa saan hadda ku aragno ayada dad kala joogta odayga qabayna hadda banaan ku jira eelo gabadhu wataas aad iyo aad baan idiga mahad celinaynaa taageerada aad u muujiseen waa u baahan tahay qof caawiya waa u baahan tahay qof u gargaara ilaahay baa gargaar iyo caafimaad bahaya insha Allah waa u bilaabatay waxaan idinka sugaynaa inaad u dhammaystiraan meesha ay joogto ninkaas odaga Cabdullaahi Yare baa wakiilka waa ninkii xal soo duubay klibkii dheerka badnaayo aad iyo aad u faahfaahsanaa haddana waxaan ka rabnaa inuu inta dhammaystiro haddii ilaa yidhaahdo dhowr arrimoodba way u baahan tahay marka koowaad sida aad wada diransan tihiinba gabadhan xalkeedu waa xal reer koonfureed mana wada fahmi kartaan marka insha Allah hawlahaas waa naloo xisaaran yahay meeshu waa meel quraan lagu qoraan saaro insha Allah ayaga soo gabagabayn doona annaguna haddii alla idmo bari waxaan isku dayeynaa sabtida xanumo waxaa jira insha Allah xanumada tarmo kale qofka laga baaro xaalkiisa si loo ogaado sida insha Allah xanumada qarsoon oo kale waxaa ka mid ah TB-da waxaa ka mid ah hepatitis-ka waxaa ka mid ah coronavirus oo kale waxaa ka mid ah saddexda xaraf oo kale waxyaalahaas markii importantiga bari haddii alla yiraahdo waa ka baaraynaa wixii ka dambeeya insha Allah meeshan hadda ay joogtaan xarun kaga dhigaynaa ayadaan ku dabiibaynaa wixii tabarteena waa dadaalaynaa dhammaanna waxaan codsanaynaa dadkii arrintaas ka dhiidhiyey oo isku taxalluujiyey inay ka mid dhaliyaan haddana ku sii dadaalaya insha Allah waa u ducaynaynaa marka aad iyo aad gabdhahan kale weli ima sheegin waa aqaanaa horta tan gabdhahan kalena shaqaalaha guud aad iyo aad hadal hayseeta qof godhax ka hayse ما شاء الله قولي أرتا وأنا حسين عبد الحسين بيقول أنا عبد الله عبد الحسين بيقول وهذا ديجانك أدي ما ندين سلامينا عبد الله يري هيا هذا ما قدر يسهل يلا ماشان هذا أولك ما يواسع هذا كذا بسم الله الحمد لله ثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلامينا دمان balaaran oo meel kasta jooga oo gabadhaan arrinteeda ay gaartay oo ka damqanaya dhibkeeda waa salaamaynaa dhammaantood assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaamka bacdi ehelow waad aragtaa qofkan ilaahay nasiibkii fadligii meel cidlaa oo duur ah baa laga helay gabadhaan iyadoo muddo badan aan rajaba laga qabin waxaana la helay iyadoo ah qof aan noolayn dhimanna baa la helay iyadii cunug yaroo ay dhashay sida laydin tusay iyo odageedii meel aan wax bini aadam ku noolaan karin ayay ku noolaayeen naftooda umbaan dhicinin waa la soo helay haddana ilaahay fadligii waxaa noo suurta gashay inaan keenno magaalada Muqdisho degmada Madiina xaafad ka mid ah oo xoosh la yiraahdo in meel cilaaja oo loogu talagalay xanuunada dadka gala oo ay u badan yihiin jinniga sixirka xasadka iyo isha waxa noocaasa iyo qofka la sixro oo deegaanka ay joogtay aad asaasi ugu ah inaanu ka baarno waan tuhumsanahay dhibaatada meeshii ay ka asiibtay inay tahay qofkan oo dhimirkeeda lagu bedelay qof dhimirha wax u garanaysa ma ahan qof oo xayinimo ay u dhowna ma ahan waa qof iska dhow mara camar oo kale noqotay marka arrintaasa waxaan rabnaa inaanu tuhumsanahay inaanu baarno ogaano salkeeda diiniyan loogu talagalay qur-aanka kariimka oo jaharka iyo mudaawaa loogu talagalay baana siinaynaa ayagaa lagu wadayaa ilaa muddo intii bilooda ay gaarto aan ku wadaynaa waxaan rajaynaynaa inaan helno waxaas iyaga ah salkooda inay baaba'aan
إما إني هضلان أن إجانو حكت ميشا كجيتا أما أيضا إلهي عافمات سيو ويوضحين نصيصو هل كان بانا بيس كجدينا عدي رايد أنا بيس نوعا meel jiif waaye guri dabaqa ayay weeyo oo si fiican ah oo lagu noolaan karo oo dadka xanuunsan oo la daryeelayo la seexiyo oo sida kiteerka camal oo kale loo seexdo oo aankiina hameenna la saarayo maalintiina la saarayo isagoo jahar iyo xabdi ah la saarayo ama sirri ah yaa hameenkiina mid la saaraya maalintiina mid la saaraya mudaawaadkana hameen iyo subaxba waa la siinayaa arrintaa markay u socoto nafaqadiisa qofka uu helo dhimirkiisa ilaahay inuu soo celiyo wixii asiibayna xogtooda la helo ayaan aad u rajaynaya haddii halkaasay ku nooshahay hadda wixii ka dambeeya ehelkana hadba raacbaa imaanaya oo gurmad ku imaanaya waxaan rajaynaynaa inaan helno jawigan ka bedelan haddii dadaalkeeda aan dhammaystirno waxaan kaashanaynaa ehelkeena meel kasta ay joogaan oo ballaaran khaasatan ee dibadda noo ah oo markasta marjaca iyo saldhigga noo ah oo dhibaatooyinka culus markay yimaadaan gacan fiican ka geysta inay ilgaala kusoo eegaan annaguna dadaalka iyo inaanu arrintaa aan 24 saac aan wixii dabiiba diiniyan maadiyan iyo dhinac kastaba iyo nafaqo inay hesho baaritaan kumbuleeda oo isbitaalada lagu soo sameeyo kan asagaana ilaa annaga aqoon culamo u leh baa joogta in ilaa intihadiisa u dambaysay aan gaarno markaasaan ogaan karnaa qofkan meeshii laga asiibay siday tahay imaa inay wax ka hadla ay noo sheegaan iyo imaa inay iyadoo caafimaado ay noo sheegto inta ka horeysa dadaalkaasaan ku jiraynaa nala qaata xogteeduna hadda saasay ku sugan tahay وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله. ninkaas waa faara Yuusuf Cisbaale waa ninkii duurka xilada gabadha ugu tagay insha Allah ilaa xal yahay warna la joogay waa Abdullahi la angliyaada faara hal iyo kalma maxaa ku daraysaa haye Halima ما شاء الله الحمد لله gabadha maanta gabdhaha ugu weynayay iyo arday iyo gabdhahaas oo dhan ma sha Allah aad iyo aad baan idin salaamaynaa dhamaantiin gabadha saldhigeeda halkan weeye haday baaritaan tahay iyo hadii kale waa ku soo celinaynaa ilaa halkaasaan kala sawirnaan ka qaadmayna hadii la yiraahdo aad iyo aad baan kaga mahadcelinaa Allah idin barakeeyo soo dadaala يا فرتون ديرية كور قاعدة باي ملا كور أنا تفيراني أنا فير المر هالمر فيري أما فيرة باي فيرة فرتون أنا فيري فير معاك كوزي أنا فيري فرتون 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 آية فرتون آية فرتون ديرية فيرة باي فيرة فرتون ديرية عقال فرتون عافمات كذا كور فرتون وعنو سنتاي فرتون فرتون نكي أركو عد كذا يو وجه كذا يسود كذا وقبل سومالية دو حنوسن وحنا وبندقينا إن أن معناها أن ضدك وددوينا يقانو وقنصده فرتون وقبل حنوسن وقبل معناها جوجتو دجان كأفجوي برجي سميله فرتون وهي جوجتا ويل أوي وذات كذا أي واحد يسكت علين وين حنوسن تاي حسن ها فرتون كورن عافمات كذا أذيك يا حاس كذا ها هاي صاحب فرتون مدة بدن أيان هاي وأنا اللي تاحوجا معنا إن وجع كرو قد عد كذا ما قالنا حنون أياك سوى جهي حنون أسوي جاي ها واقرتي وحنون سنتاج واقرتي مدة بدن وهايا مدة بدن وايسا ها. سنة يقولون نوشاي 6 سنة عمر 6 سنة يقولون نوشاي ها فرتون وحال كذا وحال كذا وحقرابة إذا ماركت مية هاي واقرتي هاي. هاي ها markay iimaanaysa ka waran makalageeda ku timid fartuun mise adigu un baan meel ka soo wadatay meel wada ah ka soo waday meel oo duur oo baadiyada ahdeed meel baadiya ka soo waday ها wada dawadeed maxay ku tiri gabar naag madax banaanana ها waa gartay waa isfahanay waa iskana kaxsan ayadana way caafimaad qabtay mugaas ها ma caafimaad qabtay mise sidaan ahayd waa xanuun xoogaa adiga caajis waa iskaga jiray laakiin sidii waa dhaantay waa caafimaad qabtay ها aad u hadda waa dhul dhacday aad ay u liidataa waa gartay hadda meeqada ay ku dhashay saddex carruur ay dhashay laba waa iga saqiirtay 3 carruur ay ku dhashay laba waa ka saqiirtay mid gabar ayaa joogtay mid gabar ayaa ku joogto si fiican fartuun waxa ahalkeedii wax qaraabadeeda maaragtay may midna ma hayo midna ma hayso may waa gartay ayada ka waran caafimaadkeeda ka waran hadda maxay cuntaa cunto ahaan raashin maalin waa iska cuntaa waxaa loo geeyo maalina ma cunto adiga marba si waa adiga
caafimaadkeeda caadi maaha. fartuun yay u dhalatay fartuun sida iyada ay sheegtay dhalashadii waxay tiri mariixaan ahay daaro. fartuun ifiir hal mar dhalashadayda maxay tiri fartuun waxaan nahay gabar mariixaana haa mariixaan iyay ka tahay wagardhacay ka tahay siday kuu sheegtay markay caafimaad qabtay waa gartay fartuun diiriyo cigaal oo ah gabadhan magaceeda iyo wejigeeda iyo suuradeeda ninkii yaqaan waxaan u baahannahay inay nala soo xiriiraan waa gabar Soomaaliyeed waa gabar xanuunsan telefoon nambarkana waxa weeye furaha 5 weeye 44 waxaan hayo ninka wadaadka oo xaaski Xasan Maxamed Ibraahim waa wadaadkayda nooshahay oo ay u dhashay 3 caruur laba ay ka naqatay iyo hal ay u joogo fartuun maxaa ku maqashay meelahan markay joogtay ilmo kale